waan idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran channelkeena Moliman Channel. Maanta waxaan ku tusi doonaa setting-ga ugu fiican ee lagu save gareeyo fiidiyowyada TikTok-ga adigoo isticmaalaya Adobe Premiere Pro. waxaan content creator waxaan channelkeena ku soo upload gareeyaa casharo ku saabsan graphic design iyo filmmaking. haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad channelkeena soo booqato waxaa si xushmad ku jirta kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe gareyso kambalkan furato si aysan ku gafin cashirkan iyo cashar limada oo soo socdo. muddo 2 bilood ah oo aan channelka wax video ah soo gelinin maanta ayaan soo laabtay mashquul jira awgees. hadda maanta laga bilaabana waxaan isku sii dayi doonaa in aan isbuucle wax u soo geliyo oo aan jimco walba video soo geliyo. haddii ay fursadeeda intaas ka soo badatana waxaan rajayn doonaa in isbuucii aan 2 video ama 3 soo geliyo. ugu badnaan 3 video ayaa soo geli doonaa. haddii ugu yaraatana waxaan soo geli doonaa jimcoole ama isbuucii hal mar ayaa video soo geli doonaa. aanu soo gudubna cashirkeena maanta oo ah sida aad ku save gareysan lahayd video high resolution ah ama muuqaal aan tayadiisa isdhimin kaasoo aad gelin doontid TikTok ama platformyada kala duwan sida Instagram iyo Facebook oo kale. marka maanta waxaa halkan kugu tusi doonaa setting-ga isticmaal lahayd iyo qaabka aad u save gareysan lahayd videoga aad ku upload gareyn rabtid TikTok ama platformyada kale asaga oo aanan tayadiisa waxba iska dhimin inakeena software-ka. marka Premiere Pro-ga imaado waxa ugu horeeya aan sameeynaya waxay tahay waxaan haystaa sida halkan kaga jeedid videogan 16:9 ama Full HD ah. TikTok-gana waxa uu qaataa aspect ratio ah 9:16 oo ah vertical. laakiin waa ku upload gareyn kartaa video sidan ah oo 16:9 oo Full HD waa ku upload gareyn kartaa, balse sida uu sameeysan yahay ama sida uu ku qurux badan yahay in lagu geliyo waa 9:16 aspect ratio-ga ama vertical-ka. so marka waxa u baahannahay inaan sameysano sequence vertical ah. command n ayaa leenahay ama control n marka aad dhaho waxa isoo baxayo setting-ga meesha sequence-ga meesha aan ka sameysan lahay sida halka ugu jeedid DSLR to 4 frame per second ayaa dooranaya qaybta setting-ga ayaa sii aadaya. okay marka halkan timaad waxa u baahan tahay inaad wax ka bedeshid frame size-ka oo hadda waa Full HD waxa ku bedeleynaa vertical-ka oo 9:16 ah. waa isdib marsiinaya oo waxa halkan ka dhigaysaa 1080 halkan kalena waxa ka dhigaysaa 1920. okay marka saas ka dhigtid sida halkan kaga jeedid sequence-ga wuxuu isku bedelay cabirkiisa 9:16 oo ah vertical-ka aan rabnay. okay ayaa leedahay sequence-ga ayaa ku sameysmaya. okay marka aad soo sameeyay sequence-geena halkan ayuu ku soo galaya muuqaalka ayaa soo jiidaya oo ku soo drag gareynaya sequence-ga. wuxuu ku leeyahay change sequence-ga ama sidiisa ku sii dhaafo oo sequence-ga sidiisa ku aado. keep existing ayaa leedahay. okay marka muuqaalkeeni si perfect ah ugu ma aadin oo qaybta aan rabnay ma muuqato. waxaa sameynaysaa effects control-ka ayaa aadaysaa muuqaalka ayaa ku click soo siinaysaa. muuqaalka markaa click siisid halkan ayaa tagaysaa effects control ayaa tagaysaa. okay marka effects control markaa timaatid size-kiisa ayaa yareyn kartaa intii uu zaid u weynaaday. kadib waxaa ku aadi kartaa position-ka halkii aad rabtay ayaa ka aadisanaysaa. okay let's say intaas ayaan ku dhaafno oo bacdeen kadib halkan ayaa tagaysaa i ayaa soo leeyaysaa enter point ah o ayaa haddana sameysanaysaa oo ku soo xiraysaa oo Premiere Pro waxa uu sheegaysaa software-ka muuqaalka halkan ka bilow halkan ku dhameey. okay let's see hadda aan save gareyno control m inoo dheh. okay control m markaan soo dhaho halkan ayuu keenayaa formatka waxaa ka dooranaysaa H264 ayaa ka dooranaysaa. presets-kana waxaa ka dooranaysaa high bitrate ayaa ka dooranaysaa. okay kadibna halkan ayaa tagaysaa output-ka meesha aad ku save gareysanaysid make sure isku hubi inuu meel aad hadhuut ka heli kartid oo uu yahay muuqaalkaaga si aad u weynin. okay halkan ayaan ku save gareysanayaa. magac u baxso save dheh. okay halkaas ayaa dhiganay. marka aad dhiganay qaybta ugu muhiimsan cashirkeena waa qaybtan oo ah setting-ga isticmaal doon inaa isla fiirino. waa soo degaysaa presets-ka waxaa ka dhigaysaa my source formatka H264 ayaa ka dhiganaysaa formatka isagana waa soo degaysaa. width-ga iyo height-ka waxa waaye waa sidiisa ku dhaaf waxba iska beddelin frame rate-ka iska daa asagana
halkan iyadana render maximum depth tig ayaad saaraysaa kadib soo deg. marka aad soo degtid audio leveliska waxaa dhan way saxan yihiin, waxba isku mashquulinin, sidooda ayay ku saxan yihiin. marka halkan timaadid video bitrate settingska markaad timaadid ayaa halkaa waxaa ka dooranaysaa sida ugu jeedid waxaa ku jira VBR iyo CBR. VBR ku wuxuu sameynayaa hadda VBR ku save garaysid computerka asaga ayaa wuxuu qiyaasayaa quality-ga uu ku save gareey lahay asagoo fiirinaya storage-ka ama space-ka computerka ka banaan. markaas wuxuu computer ku save gareey karaa low quality ama tayo hooseysa ayuu kaaga save gareyn karaa oo aadan adigu ku anficinin. CBR kana which means adiga ayaa control kara. marka hadda CBR doortay halkan waxaa ka aragtaa waxaa ii soo baxay target bit rate-ka inaa badin karo iyo inaa yareyn karo ayaa halkan ka jeeda oo adiga ayaa gacantaada ku maamulanayo quality-ga aad ku save gareynaysid. CBR markaa dhahno waxaa halkan ka doonanaynaa 15 ayaa ka dhiganaa oo ka dhigan 15 megapixel per second. second-kiiba wuxuu noogu save gareyn doonaa 15 megapixel oo ah tayo aad u sareyso. okay marka intaan soo wada sameysano waa setting-giga u baahneen. okay marka intaan sameeyo preset ahaan ayaa u save gareysanaya setting-gigan sababtoo ah mar walbo waa u baahday inaad muuqaal sameysto wadadan hadda soo martid waa wada dheer. setting-gigan isla sidiisa ayaa preset ahaan ku save gareysanaysa. halkaas ayaa taabanay save preset ahaan ayaa dhehe waxaa ku qoray waxaan u baxsanaysaa preset-kaas TikTok high resolution video 9:16 ilaa waa fartigaal. okay ayaa leedahay uu ku save garoobi kadib muuqaalkaaga export ayaad dhehaysaa dhan halkaas ayuu kugu dhameynaya. waa intaas waxaan rajeynayaa in casharkeena maanta wax uun aad ka faa'iiday. haddii ay tahay markay kugu horeysa aad channelkeena soo booqata subscribe garee baleelkana furo si aysan kuu gafin cashirkan iyo casharo kale oo la mid ah oo soo socda. tan iyo kulanti dambo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. My life holding all of it closely. I played it